subax wanaagsan maanta waxaan rabaa halkan inaan kusoo gudbiyo warbixin ku saabsan doodihii baarlamaanka aqalka ingiriiska ka dhacay 1955 mid ka mid ah. doodan waxay dhacday 17 November 1955. waxaa aqalka baarlamaanka keenay oo furay doodan xildhibaan ka tirsanaa xisbiga Labourka, magaciisana la oran jiray Jeremy Johnson. Jeremy wuxuu tilmaamayaa ama uu ka hadlayaa tacadiyadii dowladda Ethiopia ay ku haysay dhulka Soomaali galbeed, dhulkii la oran jiray reserve area, iyo dadka ama qabaa'ilka ku nool maxkamada Ingiriiska ee u soo gudbi jiray dhinaca reserve area, oo aan ognahay hal sano ka hor inay 1954 dowladda Ingiriisku ay ku wareejisay dhulkaas hawdka iyo reserve area la oran jiray dowladda Ethiopia, iyadoon wax tala ah ka siin Soomaalida. sida uu xildhibaanku xusayana dhulka wareejintiisu waxay dhacday 1897 shirkii Berlin, laakiin looma sheegin, lagumana wargelin ilaa iyo 1954 markay wareejinayso. qorshe hore u dhaco ahaa oo heshiiska Berlin qayb Ethiopia in laga siiyo dhulka Soomaalida, marka waa la qarinaya ilaa ay xilligii Minilakh bay ahayd, laakiin dhaqangalkiisu wuxuu ahaa 1954. haddaba dooda xildhibaanku aqalka keenay oo uu u jeedinayay markaa ninka uu hadalka uu dooda su'aalaha uu weydiinayay waxa uu ahaa wasiirkii maxkamadaha Ingiriiska oo qaabilsanaa oo la oran jiray isagana Hopkinson, waxa la oran jiray Henry Hopkinson. Henry buu su'aalaha badankood ku socdaan ama uu weydiinayaa. Henry markaa wuxuu ka socdaa sanadka 1955 baa xisbiga Conservative-ku loo wareegay taladii dalka. marka wuxuu ku bilaabayaa, waxaan rabaa inaan soo koobo doodiisa iyo su'aalihiisa, aan ka soo qaado kuwa ugu muhiimsan. wuxuu leeyahay dowladdayadii hore markii aan xukunka haynay, xisbiga naga soo horjeeday iyo saaxiibkayga wasiirka ah waxay nagu eedeyn jireen inaan si quman aanan ula tacaalin xaaladihii ka aloosnaa Masar, Suudaan iyo tii ugu dambeysay 1954 ay ku wareejiyeen gobolka Soomaalida ee dhulkan reserve area la yiraahdo. markaas waxaa doodiino iyo buuqiino ahaa wax ka fiican wixii aan samaynay inaad samayn doontaan. haddaba waxaan rabaa buu leeyahay inaan weydiiyo wasiirka tacadiyada ay geysteen taliska Ethiopia maxaad indhaha uga daawanaysa, maxaa dadkii annagu aan xukunnay hooseeda nolol kala baxaya, maxay u dhici weyday heshiiskii aan dhulka ku wareejinay qodobadii ku saabsanaa inay Ethiopia jebiso. su'aalahaas waxay ahaayeen kuwa ugu muhiimsan. wuxuu soo qaadanaya tacadiyadii, haddaba wuxuu xusayaa oo baarlamaanka hortiisa ka sheegaya warbixino ka soo gaaray gobolka Soomaali galbeed, magaalada Jigjiga, inay sheegayaan in 5 nin oo odayaashii dadkii waxgaradka ahaa qabiilka Geriga la yiraahdo magaalada bartankeeda lagu daldalay inta xarag la suray. 25 kale oo odayaashii Geriga ahaana ay u xiran yihiin, dilna lagu xukumay. walow uu leeyahay warbixin hadda noo timid waxay sheegaysaa in 25 oday xabsi loogu bedelay. waayo xilliga maalinta uu hadlayo oo 17kii bisha November, maalin khamiisa ka hor, waxaa dhacay 25 guuradii boqor Haile Selassie u dabaaldegayo Ethiopia oo dhan laga dabaaldegay 25 guuro markay ay u buuxsantay. marka fasaxa dadka markaas ku aadiyay. xildhibaanku wuxuu leeyahay wariyaal goobjooga oo dad iyo saaxiibo nooga yimid wadanka
waxay noo sheegeen waxa ka socda oo dadkii aan uga soo tagno gobolka reserve area aan ku wareejinay in etoobiyaankii ay xirxirayaan odayaashii, in qabaa'ilkii lagu qasbayo inay etoobiyaan sheegtaan, in caaqilo cusub ay sameeyeen, in ma aragta waxa ugu weyn oo uu xusay oo hadda xabsiga ku jira buu yidhi markaa xubin ka mid ah waxgaradkii magaalada Hargeysa, magaciisuna ah Maxamed Boqorre. Maxamed Boqorre wuxuu leeyahay etoobiyaanku waxay ku eedeeyeen in uu ka tirsanaa urur xag jira oo sharci darro ah. Soomaad arag Maxamed Boqorre ururku ka tirsan yahay ama dhaqdhaqaaqa uu ka tirsanaana waa dhaqdhaqaaqa ka jiray dhinaca maxkamada Ingiriiska uu haysto Somaliland. Marka wuxuu leeyahay ururkaas iyo gobolka uu ka tirsanaaba waxaa lagu xukumayaa Hargeysa markuu xuduudka dhinaca uu u soo dhaafay. Marka wuxuu leeyahay Maxamed Boqorre ma ahane waxaa la diiday dhulkii daaqsinta ahaayo geelayda aan waayo daaqsinta labada dhinac xuduudka reserve area mahana dhinaca kale way isku gudbahayaan baa heshiiska ku jira Etoobiyaanka inaysan dadkan isu socodkooda iyo daaqsinta xoolaha aysan qusayn waxyaabaha. Marka wuxuu leeyahay dhulkii daaqsinta ahaayo dadkani ay imaanayeen macal beere waa beeray ku doodeen, dadku waa u diideen inay soo gudbaan. waxa uu soo qaadanayaa dhinaca waxbarashada. Wuxuu leeyahay dowladdayadan Ingiriisku dadkii aan haysanay waxaan barna ma leh moogta waxbarashada. dhinaca waxbarashada waxaan ogahay buu yidhi waddanka magaaladan aan joogno London ah 2 arday inay joogto ama dhowr kale 2 ama dhowr kale uu leeyahay. halka koonfurta Soomaaliya nimanka Talyaanigu dhulku hayso uu keenay magaalada Roma 250 arday oo ay weliba dhigtaan jaamacadaha heerka ugu sareeya, waxbarashada heerka ugu sareeya. annaguna halkan 2 iyo bahalkii baan ku haynaa. wuxuu kula leeyahay iskoolaadkii dhinaca reserve area ku yaalay ama magaaladan Awbarre la yiraahdo iyo mid kale u dhow 2 iskool ku yaala Etoobiyaanka waa xireen. waxaan ka sii daran buu leeyahay hadaba waxaan la soconnaa in Ethiopia ay la wareegtay waddankii Eritrea qayb ka midana maanta ay noqotay. haddaba waxaa warbixinta isoo gaaraysa ay sheegaysaa in Ethiopia iskoolaadka ay hadda ku bilowday inay ku dhigto maabka cusub oo iskoolaadka ardada la baro gobolkii aan anagu haysano gacanteeda ku jiray oo maxkamadii Somaliland Protectorate la oran jiray in ay ayagu leeyihiin ba ardadooda hadda bartaa gobolkaasna ay u soo jeesteen inay qaataan. haddaba maxaa nooga qorshaysa, maxaa dawladda u fiirsanaysa, maxay dadkii aan ku wareejinay waxaanoo dhiba ay u mudanayaan, maxay ugu soo hanqaltaagaysaa dhinaca kale. wuxuu kaloo leeyahay warbixinada halkan 2 nin oo 3 nin baa nagu soo booqday sanadkii hore, Michael Mariano iyo 2 oday oo kale 2 sheekh buu leeyahay. waxay la kulmeen wasiirkii maxkamadaha dawladdii oo asagoo ka tirsanayo waxay nagu soo wargasheen xaaladda waddanka uu ku sugan yahay. dad waxtar oo xurba ay ahaayeen buu leeyahay hadalkiisu. laakiin waxaan ognahay dhibaatadaas Etoobiyaanku wado annagii oo aanan ku fiirsanayna, annagoo dhulkoodii wareejinay, daaqsintii xoolihii laga hor istaagay. waxaasoo dhan waxay horseedeen buu yidhi gobolkii aan haysanay in aysan u soo jeedin Ingiriiska, inaysan danaynayn Ingiriis, inaysan danaynayn Xabashi. meeshii Berbera ay ku xirnaan lahayd Addis Ababa, Berbera maanta waxay ku xiran tahay Muqdisho. waxaasna waxa ka shaqeeyay waxa ay ku timid waa tala xumadayada. Soomaad arag inaan dad ku wareejinay aduu doodiisu intaasuu ku soo koobay. wasiirku markuu istaago Henry wuxuu qirahayaa tacadiyada la soo gudbiyay inay jiraan, dilka odayaasha inuu warkooda soo gaaray, ninka la yiraahdo Boqorre inuu xiran yahay, wakiil jigjiga joogaa jiray oo kale oo loogu talagalay Etoobiyaanku maxkamadaha markay dadka saarayaan Soomaalida in uu ka qayb galo wakiilkooda uu tago meesha.
wuxuu marka warbixinta hore waxaa ku jiray inuusan maxkamadba dadka aan la saarin 1 sano 2 sano uu u xirnaanayo ayadoo wax marka qofka keliya oo maxkamad la soo taagay maxamed boqorru ah oo lagu eedeeyey wakiilku waa ka qayb galay maxamed boqorre soobaad arag wuu dhegaysigiisaas marka wuxuu leeyahay wakiilkaygu waa ka qayb galay maxamed boqorre xarigiisa waxaa jirtuu leeyahay haddaba bisha 30keeda waa November 30keeda shir baa wuxuu ka dhacayaa Harar aan isugu imaanayna annaga iyo Etoobiyaanka shirkaas baa waxaan uga hadlaynaa tacdiyadan aad soo gudbiseen oo kale midna waan kuu sheegayaa dadka aan annaga xukunno oo dhinaca maxkamada Soomaaliland la yiraahdo Etoobiyaanku oo hanqaltaagooda iyo waxba ka shaqayn maayaan dadka mas'uuliyadda annaga qaadnay daryeelkooda iyo waxooda iyo amnigooda iyo noloshooda annaga ay nasaaranta inaan fulino marka taa wuxuu leeyahay damacooda inay gobolkaas u hanqaltaagaan iska ilow laakiin tan kalena waan la tacaalaynaa waan la hadlaynaa doodii 2 nin oo kale oo ku xoojinaysa soo galaysa laakiin muhiimaddu doodu intaas ay ahayd in ninkaasi uu xusahayo dhibta halka ka jirta dadkii sida loo heshiisyadii Soomaalida la dhibaatada haddaba marxaladda waxa ku qiibaysaa waxa socda maanta moogta waxa socda waxay tahay damaci Ethiopia oo noocaas ahaa oo buugta uu tilmaamayo in lagu dhigi jiray xilligaas inuu weli taagan yahay moogta mar walbana ay fursad eegayso fursaduna waxay noqonaysaa fursadaha maanta muuqda oo kale in dagaal weyn adduunkan ka dhaco oo sharciga oo dhan markaas uu gacanta ka baxay sida qolaba meel ugu duulaysa ay imaanayso waxa uu hore u sheegay aan ka ilaawo waxay ahayd in qabaa'iladii Soomaalida lagu qasbay Etoobiyaanimada caaqiladii ay sheeganayaan Etoobiyaan inay yihiin si ay deegaankooda u deganaadaan ugana nabad galaan Soomaad arrin dhibaatada jirta waxaan ka fahmay haddaba anigu sidaan u arkay waa 10 Soomaalidu meeshii ay maalinta taagnayd meel ka soo foolxun bay taagan tahay in ay iskaashadaan walaalowaan arkaan dhibta uma jeedaan laakiin marka ay sida kuwii hore waagaha soo hore ay dhibtaas oo kala mutaan bay maalin aysan wax ka qabasho lahayn baa imaan doonto ay ordi doonaan moogta laakiin 10kani ama waxa laga dhaxli doono idinka idin furata Soomaad arag haddaad wax iska bedeleen Soomaad arag hadday Soomaalida baahideedii ama Soomaalinimadii xilligaas jirtay aysan maanta jirin maxaa keenay maxaa sabab u ah maxaysan Soomaalidu u arkayn ayagu isku arkayaan aysan shisheeyaha u arkayn jiritaankooda ummadnimo dadnimo dal ahaan waxay ku xiran tahay isku duubnidooda marka Allah fahansiiyo Soomaali intaasan ku soo koobay waxaan kaloo ku xoojin doonaa warbixin isla xildhibaankaasi uu sanad kadib jeediyey tan waa shir jaraa'ida uu qabtay isla arrimahan waan hadda xusu uga hadlayaa Soomaad arag weli wuxuu leeyahay maxaa u qorshe ah dadkan anagu haysanay maxaan qorshe u haynaa gobolkii kale maamulkii Talyaaniga wuxuu gaarsiinayaa madaxnimo 6 waxba kama harin 1906 wax qorshe aan u haynana male arrin noocaas uu ka hadlayaa marka taas dambana waan ku xijin doonaa cajarkan kan xiga intaas ay idinka tagay baa salaam